soo dhawaada soo dhawaada kulligii waan islaamay soo dhawaada oo noo sheer gareeya baba soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada waa inaad soo dhawaataan oo kulligiin sheerta siiya caawa waxaan ka hadlay labaatan jirka beenta laga sheegtaa rabo inaan ka hadlo war baan ka hayaa soo dhawaada bal kulligiin waa assalaamu calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu been baan raba inaan ka taba tagay soo dhawaada oo noo sheergareeya labaatan jirka labaatanka milyan beenta laga sheegay ayaa war runa ka haya waxaan rabaa inaan meeshaan ku tufo shiina colay inaan ku tufaa rabaa calaqaate waaye aan rabbi islaamka aqoonin tolnimana waxba ka aqoonin soo dhawaada runtay tegaysaa runta lagu kala harayaa xafse aad ba umahadsantahay inaa shirgaraysay haddii dad ba waxay iga soo codsadeen inaan ka hadlo labaatan jirka la dhahay 20 milyan buu dhacay warkiisaa noo haya waa ka daba tegaya wax yariis aan ii sheegayaa hameenbar bay ii tahay waqti dambe ii tahay marka waxaan rabaa inaan ii sheego sida wax u dhaceen ninka 20 milyan lagu haysto sida wax u dhaceen baan ii sheegayaa ninka 20 milyan xaday horta marka ugu horeyso hadalka Soomaaliya murtiba u dhintaa wax 20 la yiraa muuse qaadan 2 milyan buu qaatay 2 milyan oo dollar baa 20 milyan laga dhigayaa taas rabaa inaan ii sheego marka taas ayaa rabaa inaan ii sheego shiina colay wuxuu caayay suldaan warsigeli wacay wuxuu yidhahay wuu cararay tuug waaye markhaati been u furay boosaasu oo ay wuxuu ku aado dhahay train uu ku aaday bas buu ka raacay muqdisho waa cararay buu dhahay waa tuug buu dhahay saasaan u dhahay shiina colay wuxuu caayay tolkiisu caayay shiina colay lacag baa lasoo siiyey shiina colay waxaa laga soo wacay muqdisho iyo dad live-ka soo galo hawiye ah baa waxay dhaheen lacag baan ku siinaynaa ninka daarood warsigeliga ah dadka adigu aaminayaan annagana lama aaminayo qabiil baa naloo arkayaa lacagti intay taaniga liima sheegin shiina colay waxaa dhahay lacagtaas qaado waxaa sameysaa ninkaas inaad live kasoo geshid oo ummadda Soomaaliya ogeysiisi waaye dadka magacooda mar inaan sheego waa dad hawiye oo live ka soo galo ayaa loo soo damiintay shiina colay oo waxa la yiraahdaa daarood ahaan baan usoo maraynaa daaroodka dhageystaan daaroodka ayaan u marsiinaynaa shiina colay warkaas ha gudbiyo shiina colay wuxuu yidhaahay waan kasoo fikirayaa shiina colay wuxuu wacay ninkii la dhahay lacag buu xaday buu wacay shiina colay wuu la hadlay ninkii wuxuu dhahay saaxiibo lacag baa lii ballan qaaday intay taaniga ma ogi lacag baa lii ballan qaaday haddii ay isiisi 10,000 baa ka badan lacagtii lii ballan qaaday 10,000 keliya ku weydiisanayaa 20 milyan baa soo qaadatay 10,000 hadday kaa baxayso waan ku hiilinayaa kumana kashifaayo aniga haddii lacag baa la siinaya waan kaa hadlayaa buu dhahay marka wuxuu ninkii dhahay war adiga hooyada iyo tii ku dhashay iyo tii midgaanteeda lacagta ruusan jirta u sheeg buu dhahay warkiina wuu duubtay shiina colay isma dhihin ninkan 20 milyan haysta ayaa warkaa duubanaya oo maaragtay waqtigaas haya oo waxa yaqaan isma dhihin ninkaana wax walba ku talagalay ninkii wuxuu shiina colay weydiistay 10 buu weydiistay ninka wuxuu yidhahay $1 kuma siinayo waa haddii ay sun kuu noqotaa buu yidhahay ninkiina wuu soo dhigay intuu soo dhigay shiina colay soo cararay wuxuu yidhaahay ninkii lacag buu xaday hawiyuu dhacay daarood guriga lagama haysto muqdisho cid guri laga haysta ma jirto cirka ka dhacday anigu ninka lacag ma weydiisin codkiisii baa yaala oo lasoo dhigay meesha codkiisii baa yaala ninkii baa soo hadlay ninkii baa cadeeyey wuxuu u sheegay odayaashii warsigeli u sheegay shirkadu dhamaanta waxay maraysaa Soomaaliya dhan bay joogtaa waxaana meel weyn baa laga riday 60 wuxuu qaatay 20 milyan muuse qaadan sidaan baa u dhacday ninkii wuu hadlay odayaashu la shiray maanta wuxuu ku yiraahay aniga maalinta muqdisho tagayay $60 baan wuxuu dhahay markaan ka soo noqonayna muqdishona hal sano gudaheeda waxaan kala soo noqon yiraahay $2 milyan markaas la 2 milyan oo dollar sidee ku sameysay lacagta soo dhacda loo baahan yahay ninka wuxuu yiri maalinta muqdisho tagayay 3 guri aabis Mareykan buu joogaa aabahay baa wuxuu yirahay intuu farmaajo xilka hayo oo nin daarood xilka hayo guryaheeni ka wardoon oo warka noo keen budho guryaheeni noo keen buu ku dhaabis oo daa oo Mareykan jooga oo Minnesota jooga aniga galabtadan baa la hadlay
odagii markuu saa ku yiraahay ninkii uu baxay 60 doolar buu watay muqdisho tagay muqdisho markuu tagay ayaa sida dan u dhacday ninkii gurigoodii buu tagay saddex guriimkii ugu horreysay uu tagay markuu gurigii tagay ayaa waxa lagu yiraahay gurigan anagoo soo burbursan banimaanay oo meesha ka dhisan oo tabcaan ah oo kala daatay oo ka soo wareegtay 16 sano ka hor baa soo degnay guriga anaga dhisanay gurigan cid aan siinayno malaha maal baa naga galay dhiig baa nooga baxay anaga wardiysan jirnay anaga dhisanay anaga hal bal asxaan kugu falaynaa baa la dhahay gurigan ka samar dadkaagii waarkaagii wixii kusoo direen oo sheeg lacag haddaad haysanin 60 doolar sheegto ku imaada muqdishona 4,000 bay siiyeen 4,000 doolar bay siiyeen waxay dhaheen kun noqo oo sahay ka dhigo gurigan iska ilow kuma siinayno ninkii gurigii uu iskaga tagay haddii aad soo noqotay leeyahay haddii aad soo noqotid ama maxkamad aadid ama dawladda la aadid ama TV soo fariistid oo muqdisho guriga ku dhex dhawaaqday waan ku dilaynaa waa lagu dhahay ninkii waan heeg ku dilaynaa ninkii uu baxay gurigii labaad buu aaday markuu guriga labaad u tagay ilaahay annagu gurigan aabbahay nooga dhintay 30 sano gurigan deganayn noloma sheegin cid baa iska lahayn gurigan annagu aabbahay dhaxal loo siiyay gurigan annaga iska leh haddii akaadishina waa ku dilaynaa gurigu ka carra kii kale u aaday waxa la yiraahdaa adeer gurigan cid aan siinayno malaha meel fiican buu ku yaalaa ma gadayno cidna ma siinayno cidna ma aqoonsanin adiga ku taala ninkii magaalada muqdisho iska galay 6 bilood markuu joogay ayaa niman lacag haysto oo hawiye ah buu la saaxiibay raggaas uu iskala maartay saaxiib lahaa wuxuu noqday nin bulshaawiya oo muqdisho iska degan markuu 7 bilood jooga waxaas dhalatay wax la yiraahdo Forfax dhalatay oo dadka lacag laga aruursanayo wixii ba nimankii hawiyaha lacagta lahayn waxay yiraahdeen oo saaxiibada kala dhigtay saaxiib nala shaqeysay dhaheen nala shaqeys anaga lacag ku siinayne adiga suudi tay noo soo xiro lacagta noo aruuri halkaana fariiso ninkii wixii uu la qaybsaday wixii uu iskala bartay uu dhex galay nimankii wuxuu iskala cunay markii dambe asaga xafiis buu furtay oo asagu iska leeyahay xafiis ayuu furtay oo asagu iska leeyahay lacagtii nimankaas siin jireen mudadkii u imaanayay wuxuu dhahayay haddaa 50 doolar dhigtid 90 doolar bay ku noqonaysaa isbuuc tadawbari ka bacdi 50 doolar dhigatid 90 doolar bay ku noqonaysaa dad buu saa ku soo xirgeliyay 90kii buu siiya 50 buu keenaa 90kii buu siiya dad badan baa ku soo hurday dadkii saaxiibada ahaa oo hawiyaha oo ka lacagta badnaa oo suuq galiyay lacagtii dhahayeen double bay ku noqonaysaa asagii ka badan buu u sheegay asagii dadku dhib ku soo dubeen 2 milyan markuu ka aruursadayna wuu ka tagay marka su'aasha la weydiyo odayaasha weydiin waxay ahayd lacagtan waa xaraan waa la celiyaa markaas ilaahay haddii xaraan jirto waan ogolahay laakiin waxaan u baahanahay guriyahayagii oo aabbahay iska lahaa oo daahana u tagay oo meeshaasi meesha ku yaala warqadahoodiina waa kuwaana u dhahay cadayntii baa sana guriga oo naloo diiday lacagtan waxaan u qaadanayaa bay yiraahdeen 2 milyan laba guri oo kamid ah guri baa naga sii maqan buu yiraahday wali milyan baa ga maqan 3 milyan oo muqdisho kala soo tagay ahayd buu yiraahday ma ahayn 2 milyan kala soo tago guriyahayagii baa dhacna looga haystaa xoogna looga haystaa lacagan soo aruursan oo anaguna soo dhacnay in la yiraahdo hal la celiyo iyo kan baa loo sameeyay iyo heblaha laga soo dhacay ma dhacayso yiraahday marka hawsha in la ogaado waaye ninkan guryaha laga dhacay lacagtan wuxuu ka soo dhacay dadkii guryaha haystay ee hawiyaha ee deganaa muqdisho marka lacagta marna lama dhigi karo waa la celinayaa marna lama dhigi karo waa xaraan haddii xaraan jirto dad baa guriga ku tukada oo xaraana oo 30 sano deganaa dad guryahoodii la degan yahay dad baa guryihiisii laga haystaa lacagtiisii baa laga haystaa xoolihiisii baa laga haystaa in shiina colay loo soo dirsado oo in adeerkiis yahay oo meesha loo soo marna waa inuu gumeednimada ku jirto waa ay dhalay shiina colay waa ninaan rabbi ragga ka xishoonin waa nin lacagta waxay tahay yaqaana aan aqoonin tolnimada wuxuu kale ana tol maxaa iga galay ana tol maxaa iga galay waa shaqeysanayaa tol maxaa iga galay maxaa iga galay ninkan warsangeli warsangeli baa taa aniga kuma damiinanayo shiina colay isagoo Mareykan isagoo Yurub jooga ayuu wuxuu ka cabsanaya nimankan meesha la degdegan oo lifeka soo galo oo hawiyaha buu ka cabsanaya waa nin fulaya hatta ka hor 2050 60 shiina colay la bursanay niman isaaqa intee wul soo qaateen maalin buu life soo galay bariga life la bilaabay oo isaaq wax ka sheegay bay waxay ku bursadeen meesha dareenka waa wada aragteen shiina colay la bursanay la rabaxayo shiina colay waa hamaan waa fulay lacagta fulinimo waxa kama xaskaysan rin iska ma dhici karo waa la soo adeegsan markaas soo galaya aniga aan dhalay wadahay aan dhalay wadahay asaga mudsanka qaansiir guduudan warninkan waa la soo adeegsaday in adeerkiisa loo soo dirsaday niman live ka soo galo asaga lamida ba waxay leeyahay adaada sameeynin Facebook iyo YouTube ka xirana lacagtan qaado annagana noo hadal Facebook iyo YouTube wallahi billahi tolo waa ka xirana أنا بدنا يدك وشيء وأنا ما كان وياه وده تقنن الله يخلص صدره ما جلس كوسه قرناي وهبر قدر يأبجر أو إذا أركيسين والله دارتي أنا فيري شنو عرنا ما حكوا راهي قرر بان أقدري
maxaan ku idhaa hadda ma aha long time waan ka samray anaa kaa celinayaa dhahay anigaa Facebook waardiyanaa dhahay anigaa dadka tolku baa dhahay albisaarta u baar qabeynaysaa baa dhahay waxaa rabtid ku hadal baa dhahay cidnaa ka cabsanayn shiin colay wuxuu in adeerkiisa oo u dhahay war daarood guri laga haysto ma jiraan war cid guriga laga haystaa ma jiraan war ninka lacagta wuu dhacay war lacagtaa la soo celiyo 30 milyan haysta ee abgaal ee hotelka uu qurxan maanta ka dhistay xeebta liido 30 milyan yaa laga dhacay mariixaan baa laga dhacay 30 milyan sidee uga dhacay weydiiseen wasiirka madaxtooyada wasiirka muxuu ahaa madaxtooyada maaliyadda wasiir dowlaha madaxtooyada maaliyadda ayuu u qaabilsanaa dowladii baalkii Sheekh Shariif ayuu u qaabilsanaa lacagtii loo keenay in gada la geeyo iyo cuntadii Turkigu keeneen oo dadka abaarta u dilaysay ayaa asaga loo dhiibay inuu u gudbiyo gado lacagtii wuxuu u bedeshay inuu hotel ku gato oo lacagtii ku beec mashruuc oo bakhaar ku furto oo dadkii Muqdisho ka iibsado sidaas uu 30 milyan ku iibsay malis weydiiyay 2 milyan baad u socotaan hadii aan leeyahay daarood baa lacag dhacay 30 milyan hal keeno oo mariixaanka laga dhacay oo Turkiga 2011kii Turkiga laga iibsaday oo dadka xoolahoodii la iibsaday hal keeno 30 milyan 30 milyan 30 milyan haysto 20 milyan haysto ina adeer waa la isku budbootinaya meeshan waxa la isku haystaa malaha cid loo soo su'aalay malaha qaan la bixinayo ma jirto cid wax la weydiinayo ma jirto xaraam bay ka tahay ninka warsan gali annaga ku taageeran lacagta xaq buu u leeyahay guriyaha laga haystaa wuu shaqaystay gurigiisa baa xoog looga haystaa inuu dadka xoog lacagta u qaataan annaga ayaa ku taageerana waa in la soo gaaro wax xaraana ma jiraan hadii xaraana jirto guriyaha laga baxo dadku leeyihiin haddii xaaraana jirto guryaha xaaraanta ee lagu jiro Muqdisho dadka ilaaha ha la siiyo ninka gurigiisa 2 milyan annaga bixinayna annaga ayaa aruurinayna aniga ayaa maanta bilaabaya saddex guri oo iska leeyahay oo xoog looga haysto oo loo diiday ha la siiyo lacag xaaraan baa la dhacay kan baa la dhacay baratay in babaan iyo qabyaaladii wax lagu hadlo 30 milyan oo dhacay ninkan 30 jirka ahna lacagtii baraxan baa iska la soo celiyo dad baa u dhintay 140,000 oo cunug baa dhimatay lacagtii lagu quudinayay cuntadii Turkiga u keeneen ayaa la iibsaday oo lacag loo bedeshay oo hotelka ugu horreysay ku furtay xal yaha Plaza Hotel ayaa lagu furtay hotelka ugu horreysay gormu magaala soo gal Muqdisho gormu soo galay 30 milyan hayso Muqdisho gormu soo galay 2000 kii buu soo galay asaga magaciisa loo qorin 2011 giina rich buu ahaa rich 30 milyan haysto ahaa sidee bay ku dhacday inaad Soomaali waa maalin daajir waa Soomaali nin walba sidoo lacagta qofka uga dhacayo ha ka dhaco ninkaasna xaq buu u leeyahay maantana meelu talkiisu degan yihiin ku badan yihiin lagu waardiyeenayo lacagtiisa uu guri ka dhisanayo hotelka u qurxoon buu wuxuu ka dhisay Hargeysa waxa la siiyay booska u qurxoon baa la siiyay isbuuc soo dhaafay booska u qurxoon inuu hotel ka dhistay ayaa la siiyay waa tii tuugadeeda lagu sameeyay Muqdisho bedelkeeda halka ka dhacday taas waa in la ogaadaa qofka u baahan inuu soo messengerkayga oo furan oo su'aalka qabo messengerkayga oo furan messengerkayga facebookayga messengerkayga qofka raba iga soo waan iga qabanaya meesha tuugnimo u baahna xoog ma baahna ninka warsan gali 20 ka qaatay la sheegay 20 milyan waa been 2 milyan buu qaatay 2 milyan xaq buu u leeyahay saddex guri uu leeyahay laga haysta oo abi soo degan Minnesota oo u dirsaday abis annaga la hadalnay anigaygan baa la hadlay cid baa la soo hadashay maaha waan raadiyay 3 days baa ka dawreegay ina soo ogaado abiso da guriisi oo ka soo carro qaxooti ka soo aaday oo maanta xoog looga haysta Muqdisho wiilkiisu u dirsaday waa la dili gaaray hadda soo noqotay waa gudileena qofa xusoo qaray cadayntii aaway wuxuu dhahay waysta afadisi kan sheegaya shiin colay wuxuu soo dhigay afadisi lagu sameeyay heblaay shide oo Muqdisho ku yaalo war Muqdisho waxa lagu sameyn karaa maanta aniga dhashay shahaadadeedii iga nuntay ee la waayay 1991 raacday dawladii Maxamed Saad Barre maanta hadda u baahdo waxa lagu sameyn karaa suuqa bakaaraha waxa la soo taabacay aniga sameyn kara aniga baa sameyn kara ma waxa siina cunadii loo soo taabacay loo soo diray oo lagu leeyahay cadayntii waa kana intaan buu lacag bixiyay kan buu lacag bixiyay khabar walba sameyn karta warqaha yiriska كميركا كو قرن كرتا waa bardikaraynaysa shaabada soo iibsanaysa oo ku dhufanaysa yaa is weydiiyay waxaas heblaha shideesha lagu sameeyay Muqdisho waxaana dhan waa laga dambeeyaa waxa la rabaa dad lacagtooda in lagu xalaalsado ma fiiri ninkan kaliis ma ahayn dadka lacagta dhacay waxay niman badan bay ahayeen
انت كله هويه waxa lagu leeyahay Malaysia aaday Europe aaday Africa qaarad u dambeysay Morocco aaday nimanka hawiyo dhan waa ka carareen Soomaaliya asaga Soomaaliya ku saaray waa been Muqdisho la joogaan hawiyo way kala cabsanayaan isma weydiin karaan xiniye is qabtaan magaalada Muqdisho hotel ka dhisanaa nimanka asaga lacagta la xaday magaalada kama baxayaan arxay waa ku dhacna leeyahay وهنا ذا وقتان ماشي انتو نمذا لا صوف فريسان هاي يبختي يورقضها يعدين كان عدين وبهنا أفكي وإنا أمتا وحكا صوب حيو حقيق بكوشية رد أيان هيا هذا هو بهانتي القضية وان بالله من كرا وان وعي كرا وان وريسان كرا وان صوت وان لايف المسؤول قلايو ويوتيوب كي جميلها سوق قلنا دلو بحي عدين تي وعلى طبقه وضيال أي دالبضان وضد المسؤولين دالبضان أبيس لو بهذا أبيس وانا هيا لمبكيسة وانا الله الله وانا نوري هاي يوتيوب كي فيريو وكوجر عن دوبة شل إن ساكا أرورتي دان أضيق لهذا دب بوح يسووريين إنه دنت وسجوري لحين وركس وان جود بيه وان كتب التجي واتنا قرالان قري وحول بان جود بيه أبيس الله الله عدينتي وهاي وضوح ودا مركارتي أدر إلى صحاري جوري يجا عدر بنكور هذيننا ويلكي جينا والله مسبدنا أبو دهاي وحول دعي وحول ما ارتقات من مجران لعق أو شقيستي أيها يستابو دهاي مركا هدي لصوصينا إن أديركيس شين عينا يسودامدي ورسنجلي oo dhahay tuugo way carreen oo bas bay u raaceen boosaaso Muqdisho way ka carreen ilma adeertaas anagu ma adkeysan karno ma dhigeysan karno wax loo dul qaadan karo ma inuu shiina dadkiisa caayay oo loo soo eegso lacag iyo maartay muruq labadaba loo adeegsaday oo dhahay Facebook ma ka xirnaa YouTube haddaan noo hadli weyday haddaa hawiyanahay oo ninka warsigala ka hadli weyday Facebook waan ka xirnaa shiina colaad lagu yiraahay ilmaha taas ma qaadanayno annaga Facebook ana laga xir karin annaga soo galayna oo hadlayna annaga warsigala u hadlayna maanta hadii ay toodi loo adeegsanay dhalinyaradoodii dadkooda u hadlay hadii maanta leeyahay Facebook ka xirnaa annaga ana laga xir karin annaga u hadlayna waa inaad ogaataan dadkan waa la kala fiican yahay waa la kala adag yahay meeshana waa lagu kala dambeeyaa meesha lagu leeyahay life fal soo gala inaad xoog baa lagu joogaa wallahna bariyo lagu joogin 24/7 baa liihandada tilaba sharcan ka qaada dad aqoonin oo maanta ku soo biiray iyo dad ma arti la fiirinayo wali deeq gusad ma nool yahay maanu bash shuruucdan waa la bedelaa waa ina shuruucda la socotay Facebook dadka iskaga dhicinaysid dad baa suuq walba loo soo adeegsadaa markaan saa u furo fiiriyo bal inta qof aan waxbaan tusaya fiirsada ilmaha waxaan waxbaan fiirsada Soomaali warasku ma hayso waxbaan tusaya bal caaw sax u ogaataan meel daran ba ku xasay u kaadiba war fiiri ilaah baa nagu daartay hal qof uma diraya waa laga xiray hal qof uma jawaabo aliya nabiga iga tahay inaan u jawaabin kii maartay inaan ku soo qoro deeqsado Facebook baa laga xirayaa dhulkan la jaraa deeqsado kan baa lagu sameeyaa dhulkan la jaraa markaas la weynaa markaas la leeyahay war deeqsado wixii buu iga xiray kii soo diray baa cabsanaya kii soo diray baa cararaya kii soo diray baa maartay wuxuu noqonay inuu saaxiib gal dhigto deeqsado saaxiibaan nahanay walaalaan nahanay tol baan nahanay saas baa sidii maartay saas ali soo loolanaya sidii aniga maartay lacag iyo adduun iyo caruur aan u hayo ayaa saas ali soo loolanaya deeqo waan ka dambeynaa warinteen nin meesha ku badbaadiyo oo life ka soo gasha oo aniga daraadi ku nool oo soo gasha shiina colay wallahi billahi taala intaana baran shiina colay waa brainwash lagu sameeyay aniga ayuu sasiga qaba sida ku aaminaya dadka kale ku aamini way dadka kale baa ku dhacday sida ku aaminaya war dadkan kale aaminsanahay dadkan kale isku meel deganahay dadkan baas naqaana dadka baaday waxay u sameeyaan baabuurkooda inta baabuurkeeda qada guriga albaabka u garaaci kara adiga xagee joogta adiga 5,000 mayl baa jirta mar hadda waxay ugu sameeyay xagee ku arkay kuma aamini karo raggaan baa aaminsanahay ugu dhacay raggan ayaan aaminsanahay ragii baa midii maanta soo adeegsadeen magacooda ku soo wada qortay live ka soo galeen shiina colay waa libaax runta ka sheegay ninkii warsangeli daarood maxay u yaqaanaan warsangeli daarood because warsangeli waxa jira hawiye ah saas markaa hawiye u yaqaanaan warsangeli daarood ayuu maanta runta ka sheegay warsangeli daarood ayuu runta ka sheegay shiina colay in adeerti maanta runta u sheegay waa daaroodku waa gobolash kulli soo qorayaan dadka waxa soo qoray magaciisa maanta soo wada qaatay waa dadkii soo diray waa dadkii lacagta siiyay una handaday waa dadkii yiraahay intaas baan ku siinana inta la siinay ma ogi laakiin waxa la sheegay
ninka oo odayaasha uu sheegay oo la hadlay warsangeli ee lacagta 2 milyan qaatay ayaa wuxuu yiraahay 10 milyan buu weydiistay laakiinse lacag ka yar 10 milyan wuxuu yiraahay shiina col markuu wacay wuxuu ku yiraahay waxaan ku soo wacay aniga waxaan ahay nin social media ugu jira daaroodka gaar ahaan beesha warsangeli magacay waa shiina colay waxaan ka ahay Dubai waa taqaanaa wala yaa ninka wuxuu waan ku qaanaa Facebook baa laftiga soo galaa nin dhalinyaro 20 jira waay waa ku qaanaa wada ilaadeer marka xoogaa soo wadaatay wuxuu yahay saaxiib wadanta iga soo gashay waa li soo wacay hawiye ay soo wacay waxay ugu yiraaheen hawiye lacag baan ku siinaynaa qaybada inta yahay waan maxaan dhahay waan ka soo fikirayaa waan ka soo maartay oo nagu soo celinayaa marka haddii ay siisay 10,000 lacagtii ii sheegeen way ka badan tahay 10,000 baa badan waan ku difaacayaa waan ku hadlayaa waxaan ka soo qaaday lacagta inaad dhicin maartay tugnimo lagu sheegayo aniga nin caan dhalay waan ahay waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed inay waxaas waxba ka jirin live aan ku galaya ninkii wuxuu yiri uu duurtay codkiisuna waa kii soo dhigay ninkii wuxuu yiri warooyada waxaas ma shaqeyso aniga lacag baan haystaa haddii maartay liibahayna dhulkayga iyo dadkayga iyo tolkayga la joogaa qabiilkaadana ma jiro meesha u dambaysa Soomaaliya deganahay horta waxaa Soomaali dhanna gaf iyo xaaraana ka ah in nin gabar uu qabo wax laga sheego xalay gabadhu qabay ayuu wax ka sheegayay shiina col maqlaseen naag buu guursaday oo maartay waxa la dhiishay isaaq wuxuu rabaa naagtaas jacayl isku mid guursanino isbuuc mees aqoon isbuuc shiina col xaas uu qaba cid wax ka sheegtay ma jirto waan xurmeynaa waa dumaashadeen waa walaasheen waa maartay waa gabar Soomaaliyeed gabar markii la qabo iyo haddaan la qabin waxay tahay xaaraan in laga hadlo marka shiina col heerkaas wuxuu xalay gaarsiisay markii koobaadna waa markii tobnaad oo gabar caynay waa aragteen haniyuki inuu caynayay oo dhahay qamri cabtaa istaaga ku cabtaa wada daawatay marka ninkii wuxuu yiraahay aniga $1 kuma siinay shiina col dhigayso $1 kuma siinay shiina col cirka u raasida cod buuna ka doodtay cod baana ka haystaa shiina col wantii xal soo galay dad baa ayuu xaarka cunay la soo masawray dad baa ayuu qaawan la soo masawray dad baa ayuu waala la soo masawray aniga waxa laga duubo yaa cod kaliya wuxuu yahay caan baan caan dhalay dad soo wax ma fahmay dadka wax daawanayo waxba ma fahantaan ilaahay waa ku dhaartay wax ma fahantaan wuxuu leeyahay caan dhalay waa cod kaliya laga duubay codka muxuu yahay macooda leeda war ninka lacag baada oo 10,000 isii waan ku hadlayaa beenka ma sheegayo 10,000 isii hadda 10,000 isii weydii aniga Facebook iyo ilaalsanaya waxa iga xiraya hawiye marka 10,000 ka soo qaado nimankii lacagta u balan qaaday wuxuu siinayaa mid 1,000 waxa laga yaabaa in 6,000 u soo harto waxa laga yaabaa in 7,000 u soo harto lacag ka badan buu helay lacagta loo badan qaaday haddii 3,000 ahayd haddii 5,000 ahayd marka nimankii wuxuu leeyahay faaxiyo Facebook ka xiran kunka qaado nacala shida ku yaare nacala shida kunkaas qaado saaxiibada ma artay marka nimankii nin kulla siiyay Facebook wuxuu xirra saaxiibna looma xiraayo marka lacagta loo diidana waa kana in adeerkii soo caay warsidee in adeerka u cayn kartaa warsidee sultaankii warsangeli u cayn kartaa warsidee xildhibaanadii warsangeli u cayn kartaa saldanada loo xiri karine wallahi waa la xir la muqdisho inaysan joogeen saldanada ayaa loo xir ninkii waxaa lagu soo daayay markii la xiray oo xildhibaanadii warsangeli ku soo daayay sidaan bay ahayd ninkan guryuhu u imaaday ninkan wuxuu sheegay uma sheegin lacag baa lii xiray wax cadeena ma jiraan عدينتا waxa kaliya bixin kara waa asaga ayaa cadeyn haysta rashidka wala soo qoran kara wax aaminada ma jirto fiiro ninka markii soo diinay waxa lagu soo daayay wuxuu dhahay meesha guri waa nin la yaqaan abiisan ka dhala hadlay meesha ku xirra waa loo tagay tolahan baa loo tagay guriyaan u imaaday saa u geedin bodaan guriyaan u imaaday dadka u imaaday ayaa xirtay fahma dadka u imaaday guriga ka soo raasay ayaa xirtay buu dhahay marka xildhibaanadu kuwan waxay yiraahdeen looma xirin waxa loo xirta lacag waxa la yiraahdaa banaanka ha yimaado waxay tahay oo aan arkaynaa ninka حديتها العق محلمان بس ودين كره كلها العق وإنه تركي سودايان وإنه أوجاسيد يمادان وإنه السودان يمادان وإنه أضياش يمادان والعقل ولا 2 مليون بين لغة شكته ولا 2 مليون دولار 2 مليون يا بحين كره واحد وش جاي 2 مليون دولار واي يا لو شيء و 2 مليون دولار وحقاته 2 مليون دولار بقرصه wuxuu dhaay lacagta markii la weydiiyay 2 million maxaad u soo xatay liira maxaad tug u tahay nin maxaad tahay hebel dhalay oo nacala kor u kaadiyay maxay tahay 2 million soo xatay baqtiga maxay tahay xaaraatan odayaashii markuu u tagay warsagay war guri aabay waa la dhacu dhahay guri aabay waa la dhaxay waa lii diiday waa lagu diray hadaa soo noqota la dhahay guri 4,000 baa la soo yiraahday mana soo noqon karo shaah ka dhiga la yiraahday dad million dheer haysto dhahay oo kibre oo kor u kaadinayo oo hawiye sheeganayo awood meesha ku sheeganayo guri ku malihin buu dhahay ما ديما قري لا دعيبه waxaan u soo noqdaan garan waay waxaan ku soo noqdo ayaan garan waay lacagtan saan guriga ma u qaadanaya wada lacagtan soo qaatay hadii hawiye u leeyahay lacagta wana laga dhacay hawiye guriga ha keeno
ودود صح ودود صح وقفك بالآن كلا إيمان كرو وإيري صح لعكتي سأل وحلالين يسو لعكتي سأيه وحلالين لعكت قري اللي قد عاي حوق الله يستصد صن كريد حسابي بلو بس صدح بقول كرفه صدح بقول واحد كرفه أنا صد صنة وأنت بلود لبيه طبعا كله فوق 10 years وصدح بقول يلحدن بلود صدح بقول يلحدن بس صدح بقول كله فلنا كليه صدح بقول كليه أنا قولي وحسابنا سجال بقول كله فلنا سجال بقول كله فوق إن صدح بقول يلحدن وقريبه $500,000 واي قريبه كريدي سكريه $500,000 قريبه صدق سنة قريبه $500,000 وعندي قريها اللي جاها يستي او ماشي اللي دجنا العقد اللي جود دجنا ايا waxay tahay $500,000 قريبه مش وديسن intaas مش وديسن Soomaaliya lacag baa la dhacay lacag fudaydku ma jiro ninkan lacagta asaga iska lahaa wuu shaqaystay gurigiisa xoog loo qaatay lacag buu xoog u soo qaatay qaniya ka fuushisa dadkiisu ma dhihin anigu ma dhihin qaniya ka fuushisa وإن الأوجاتان نكان dadkiisii baa la hadalay aabiis baa la hadalay ehelkiisa la hadalay warkiisa raadinay wado dorad qof baan ogaa markaan soo qoraay wax meel walba kaamida ka bixinay daarood baan nahanay lacaga xadnay marno ninka lacagta ha soo celiyo 20 milyan masaakiin baa iska lahayd arday baa iska lahayd lacagta soo celiyo laakiin markaan soo baaray lacagti 20 milyan isa dhameen lacagti gurigoodii laga haystay tahay lacag in maartay asaga in xaraan loo qaatay tahay inuu soo ceshido markaan arkay waatan caawan ka hadlaya markaan aabiis markaan la hadlay wallahi inuu wada دعوة ما هذا الكرو وأنا حيسا هذا رح يجي هقولي إن شرعي سودا واحد سنة أنه قوي وألاقي حناي عروتي ويلكي لفتي سودا ماشى سو كل شيء إن وجوريو كل شيء وجوريو رادية ومركو حدا بالبارنا عنقو حيلا ما هلا بعد تجر إن شن لو تنسنو جرا إن حيلا هاي أسوأ شن جرا كلا عروي شن سنة كلي أسوأ جرا كلا عروضة غحينا ما نعلم بينا قولي يعني كجوري وينه وكسي نجانه وكسي نجانه راي طبعا سنة كده بينو دجالكي ده كهويو ماشي دجان إهل بين الله هاي وين يقانين نلمد المنين ماشي ده بس كده دجان وانا روها يودا ما دام عنا إهل ماشي ده دجان عيالك حافظ عن كم ده هم بداي وحنا قبيل نوع سنة يمجري بداي dagaaladii sokoyo dhawaan ka badbaado dhahay laakiin markay dhacday qadka cagaaran ee isku direen habar gidir iyo abgaal oo qadka cagaaran dhistay cidna looma naxayn buda markaas ciyaalkayga la carru dhahay markaas guryaha igu noogu dambeeyso dhahay gurigooda mid baa liida guryaha ugu dhow liida meesha hoteelada hadda laga dhistay waa meesha ugu lacagta badan waxaana degan dadka ugu daran ee dadka dila ee dhiigooda caba cidna ka nixin baa degan waa meesha hadii liida ku lahayd iska ilo daaroodka berigi hore laftigiisa waa dhib badan yahay dawladda xawan siyaad bar waxay degi jireen wardhiigley waa madaxtooyada وهروة ما أنت هوية بحر هوية ما يستعان حبر قدير ما يستعان هروة يدك الماطة دارات بس كان هاجري حبر قدير سبحان الله وريح حبر قدير وجد وفرت حياة هذا أنك مقبر وقادر هنا دارات كان هدا هوية نحن حبر قدير يحنا أنك عدتك حورين ده يعني حوله مقبر وقادر هروة دارات بس كان هاجري روك صوق عليك باش قالوا يروح على بعض على البورما ماشي واحد ليجي بري تلحيس بقرا واحد يلاقي هذا روك بقرا قارسينه أو كلا قالا marka waxaan nii sheegaya meelaha u quruxda badan ee maanta u qaalisan berigana u qaalisnay daarood ba iska lahayn jiray marka meeshii u qaalisnay ee suuqa hadii lacag noqoto hadii barbaraha noqoto hadii istiraatiiji noqoto daaroodku deganaan jiray guryahaas ma helaan guryaha daaroodku sida jilicsan ay ku helaan waa kuwa dhayniliyo kor ku yaalay meesha ruwaayada la baacido joogaan هذا قرية راستحقوا أرحوي من قرية ماذا إسكال هانجر وكابح هاي دعاء قبل قرية عدك ويدينه سو أباهر مجرته قرية هالسكوا قرية وكوا حيبت اللي بلايا سوق شيء ديني حل جري يعني ورديقلي ماشي ورت النبض أوبحي مدحوني هوري شيخ أحمد أوبحناي شيخ أحمد شيخ ماشي أوبحناي ورت النبض وماشي دارت إسكال هانجري ما أنت أنا حدي أقول كلها حابر راديني أريا كل شيء جاي حدا كتر كش إناس خرحسي على الشباب بتاعنا قتل راسه حتى العقل ومصيناي حتى كان لقام يبيناي ماشي قريها سكر بالعقد ده بصعبين والبمركي واجو بريو العقد ده نقالها قريها أنت لقاها كرب عاده مرنا هوس معاده
guryahaas dhiiggaaga u daadin kartaa wax kale oo lagu siinayo ma jirto marka odayga wuxuu laba guri ku lahaa midna hurwaagu ku lahaa midna wuxuu ku lahaa baalki xeebta liido agteeda guri ugu geysayuu ahaa labada guri midna hoteelaa laga dhistay midkii kalena guri weyn oo wuxuu dhahay oo la yaabiso qurux badan oo ilaa 10 qol oo ku qiyaasaan laga dhisto u dhahay midka aan u dhow xeebta liido ayaa waxa laga siiyay maxaa la jiray $4,000 laga siiyay waxa la yiraahday waan ka xunnahay inaan meesha usoo logoday $60 lacag ka wadatid $60 oo Mareykan lacagteedu ka watay lacag markuu imaanay sanadka hor $2 milyan uu kala tagay ninka aan jaamacad wuxuu ku soo dhameeyay jaamacadda Amuud ee waqooyiga mise Soomaaliland buu ku soo dhameeyay ninka aqoon buu leeyahay wiilal wuxuu iskaga tagay ilaa lacag iska siiyay oo xoolaha ummadooda iska haysto oo aqoonta maartay si badan u haysanin xisaabiye u dhiibteen shaqo fiican bay u dhiibteen waxbay bareen dadka hawiyaha marka u tagteen qabiil ma yaqaanaan waxay yaqaanaan si lacag loo cunaa sidee wax loo dhacaa sidee maal loo yeeshaa sidee guryaha weyn loo yeeshaa sidee nolol loo hela dadka hawiyaha Mareykan inta dadkeenu jooga dadka shaqaysta ee lacagta wada leh oo maanta dhan wallahi koob shaaha si kaga bixin waa adagtahay dadka hawiyaha waa dad shaqaysta oo lacagtan waxa inay lacagta ay soo saaraan moodaa labada qof ee maanta tahriibka soo martay ee Mareykan joogta mar walba wiilka hawiya ayaa wiilka kale ka lacag badan waa dad si maalka loo sameeyay yaqaana waa dad si lacagta loo abuuray yaqaana waa dad lacagta macnaheeda og dadka kale to maanta maxaa bolo farsanaya Starbucks bolo farsanaya halkan buu la galaa Chipotle la galaya oli ka ibus ka cunaya ma yaqaan nimankan 24 saac inay shaqeystaan lacag samaysan bu jeceliin markii wuxuu iskaga tagay ninkan Muqdisho lacag soo u daadanayso markaas 2 milyan oo soo aruursan guriga loo haysta inaad armis weydiiseen wariga mis weydiiseen saddex guri waa ka maqan guriga waxa uu qaybinaynaa inuu 1 milyan yahay 1 milyan baa ka maqan in hawiyaha tolo yahay hadii qaraba leeyahay hadii islaamnimo jirto hadii Soomaaliyeed jirto ninkaas Soomaaliyeed 1 milyan baa ka dhiman ha loo aruuriyo Muqdisho jeebka gacanta ha la galiyo Hargeysa jooga dahabshiil ha loo dhigo 1 milyan baa ka dhiman anisaas kula lahaa lacag la soo celiyo iyo lacag laga wada hadlo wala si jirin dhici doonine ninkaas 1 milyan ha loogu daro si gurigiisa uga sanro ducana ugu dara aniga intaas ku soo gogoynaya duco ugu dara ninkan 1 milyan ugu daray lacag baa la xaday iyo hawiya lacag laga dhacayo hadii dhacayo qaan hawiye wax dhacayna dhacayo qana in wax laga dhacayna wax ka maqayna dadka gurigooda ha ka baxaan waxa ugu dambeeyay waxa ka dambeeyay meesha wallahi hawiye dadka gurigooda ha ka baxo lacagtan anaga loo soo raasado wax ka badan anaga u noqonayna garta aniga goynayo hawiya dal cakam qatahay ariga garta galaya wariya ninkaas gurigooda inuu lacag soo dhacsado baxaya dantada xarig eeba loogu seexdaa ninkaas waa la bixiniyo wallahi Allah la raadinayo billahi tallahi ninkaas aqoon baa ka korsanaya ninkaas saan fiiri 20 sano shaqeynay aniga 20 years ba shaqeynay 2 milyan ma haysto ninkaas hal sanad 2 milyan ku sameeyay dadka aqoonta waa maalin taajir ninkaas wallahi inuu lottery ku guulaysta moodaa ilaahay wuxuu waxa ugu daro waa nin wanaagsan waa nin aqoon leh dad baa ka wada xun meesha loo soo galaya dad soo wada xus ma ogola xabad isku ma ogola مسعود وحير النجاس ضلي وري صوع قفكي إيه بحنا وخاقة وانا وحبا عيني صوع مسنجر كي يصوع وفرية هاي وانا يقب وانا يصوع وحبا عينينا وحارب تلك جواب سؤال شارتو وقال جواب يا ولما يصوع عيبا حتى فيرنا يعني. قفا مسقري aad baan u waxumahay dadka soo caytamaya waxa laga inaan gadaal ka soo gaartay meeshan waxa uu soo galay ninka la dhahay 20 milyan buu qaatay waxa ni cadeynay 20 milyan inuu soo qaadan 2 milyan uu qaatay markii la weydiiyay maxaad u qaadatay 2 milyan dadka lacagta u dhacday wuxuu yiraahday saddex guri oo aabe iska leeyahay oo aabe soo daa Mareykan jooga ayaa guriga ay dir u dhahay guriyii baan ka war doonay inaan soo cishino oo dadkii degan la soo hadlo oo dhaho booskan hadii la degan yahay war anaga iska lahayn jiray guriga nooga bax guriga intee sana ugu siin kartaa intee maalmood ugu siin kartaa waxa lagu hanjabay haduu ku soo noqdo
oo mar dambe la arko soo guryaha raadinaya mise muqdisho maxkamad iyo meelaha la fuulo inay dilayaan baa loogu hanjabay markaas xanaaqii iyo ciirkii ayuu lacagtan maartay asagana dadkii dhacay oo meesha deganaa ayuu lacagta kasoo qaatay marka waxay la mid tahay inuu guriyihii soo beecsaday soona iibsaday hadda laba guri xaq uma laha inay raadsadaan aniga garda goynayo laba guri saddexdii guri mid walba waxa uu qiimeeyay 1 milyan inuu guryahaas laga bixin lahaa iyo kiladoodii 30 sano la soo deganaa marka lacagtaas waxaan u qaadanay laba guri waa noo dhiman waa inaad ogaataan lacagta saas ku baxday saddexdii guri iska lahaayeen marka in gardaradu ma fiicna qof dulmka in la dulmiyo ma fiicna haddii xaalan jirtana dad guryahooda ku tukada 24/7 degan 30 sano soo deganaa dadkoodii oo agoona joogaan oo rajaya joogaan oo ma artay maanta waxa laga yaabaa inaysan waxba haysaninba guriga xitaa indhe xoogaa u celiyay intaas ka siinay ma artay ku noolaan lahayn baa jira marka xaalan jirto xaalan waxay tahay muqdisho iyo dadka guryahooda degan yahay xaaran waxaa ka sheekeeya qof aan xaaran gurigiisa deganayn xoolihiisa xaaran ahayn xaal qudaar kaasaan ka sheekeyn kara in guryaha iyo xaaraanta iyo xalaasha waxay tahay intaas waa inaad ogaataan intaas aan ugu soo galay inaa cid dulmiya uma soo gelin ninka masaakiinka lagu degan yahay oo in adeerkiis loo soo adeegsaday oo yahay Facebook baan ka xirina lacag yarna oo ku siinayna oo ka soo hadal oo suldaanka warsan gacay waxa ayda xildhibaanada warsan gali oo asaga waxa tirada tug 20 milyan qaatay asoo 2 milyan meesha ka qaatay ku sheeg shiina culeyba meesha u soo galayna uu sheego in adeer waa qaldan tahay maartayna hadda xitaa dhimanaysi dhararka isku duwa Facebook baa tiraaday adigu dhan hal lagu xiro ninka lagu soo adeegsanayo waa adeerka dadka dhacay guryahoodii ayaana ku soo adeegsanaya oo lacag soo siinaya kuna hanjabaya inaad iska dhicisay asaga waaye intaasna u soo galay uma soo galin cid aniga gardarada meeshan uma soo galin in cid ugu goodiyo uma soo galin in maartay meeshan cid dulmi uma soo galin ninka hadduu xitaa ka badan xadilaha 20 milyan hadduu xadilaha war 20 milyan 10 su'aal baa dhilaha 10 su'aal baa lacagtu 2 milyan kaliya waaye dadka gurigooda waa laga haystaa marka laba guri waa aniga hadda sheegay laba guri waa ka dhimatay marka gardaradu ma fiicna in adeerkay annaga tolo ah annaga qaban lahayn annaga wax maartay waxa leeyahay nin waalan dal buu leeyahay annaga ayuu adu waasho wax dhacay annaga u joogna annaguna waxaan u aragnaa maanta gar inuu ku joogo marka gar laba ninka ma qosliso haddii maanta shalay baa gaaday maanta haddii lagu gaaday iska adkayso dad waxay leeyihiin dagaalka degan muqdisho guryaha laga dhici doonaa xoog baa loogu geli doonaa dagaal baa ka bilaami doona in guri qof leeyahay xabar walba oo qabiila tuulaga way degan tahay haddii maanta nin muqdisho degan oo dagaalada leeyahay nin baa 2 milyan dhacay waa la dilayaa sida la dhacaya mid kale oo boosaaso ayaa la dilayaa marka waa inaad ogaataan qaniya ka fujta meeshan bariyam talo Soomaaliya la degan yahay waxaan isku diray in la xurmeeyo habarkaada ma jirto habarkaada gudub baa la haysan lahaa maanta haysan lahaa marka habar tuulada uu ku adag tahay maanta muqdisho dib loo sheegay anaga ku badan hawiya nahanay kan dalkii waa hawiya ka hadda ku dhaafay waa hawiya ka dibadda waa hawiya ku wareynaa samada maray waa hawiya dilay muqdisho hawiya badan guryaha kuma siinayno xaq buu lahaa xaq buu anaga u xalaalayna xaq ayuu lahaa qof guri qof xaraan kuma sheegi karo xoolo qaata iyo sheegay taas aniga qof wala miyi qof hadduu wax qori karo hadli karana waxna fahmi karo qofkaas maxkamadda waa goyn karaa waa inaad ogaataan caqliga kaasho dad waxa lagu leeyahay maanta hebel muxuu u sameeyay isku qarxiyay dadba maskaxdiisa bedel maskaxdiisa lagu bedelin oo laga dhaadhicin ninkan waa tug labada milyan qaatay kan 100 milyan oo guryaha degan xalaal buu qotay ayaan laga dhaadhicin waxaas yaa loo qaadanin imise dad dhacayeen soddon jirka Suways ina amin mid baa ka dogayna soddon jirka 30 milyan haysta oo xildhibaanada kamid ah xildhibaanada wuxuu u galay 500 oo kuwa ninka xildhibaanada lacagta badan 500 oo kun wuxuu ku iibsaday booska xildhibaanimada markan baa warban ka sameeyay xitaa YouTube ku jira warban ka sameeyay Twitter taariikhdan dhinto in iga xaro oo loo ogaado ninkaas wuxuu sameeyay soddon milyan haysta halba ku taageera oo soo noqdo taageernimadayda lacagta 30 milyan wuxuu ka dhacay mareexaan dalka jira gaar ahaan mareexaan 2011kii waxa dhacday abaartii dabadeer ee la sheegi jiray bariga dhalanay mid ka daran baa inta Soomaaliya ku dhacday waxay ku dhacday gobolka Gaagado waxa uu soo gurmaday caalamka dhanba uu soo gurmaday oo Turkiga number 1 ka ahaa dawladii waxa markaa jirtay Sheekh Shariif joogtay markaa wasiir dawlaha maaliyadda ayuu ahaa ninka 30 milyan haysto
wuxuuna meesha u joogay sheekh shariif inay lacagta wada qaybsadaan. So lacagtii loo keenay in dadkii abaartu laysay oo ciyaalka 100,000 ay ku dhinteen gado oo abaarta loo dhintay ee imaanaysay oo Turkiga lagu barto oo Soomaaliya ku imaaday, lacagtii loo keenay ayuu intuu iibsaday wixii loo keenay iyo lacagtii iyo cuntadii intuu iibsaday oo cadaan u bedelay wuxuu ku furtay hotelka la yiraahdo Plaza Hotel. haddana hotelka uu qurxoonay wuxuu leeyahay Muqdisho ku yaala la yiraahdo Iliad Hotel. ninka iskale Iliad Hotel 30 milyan waa lacagtii mareexaanka iskale heedo loogu keenay sadaqada beesha caalamka iyo Turkiga u keenay. lisma weydiin nin hawiya 30 milyan daarood ka xaday lama dhigin, nin hawiya 30 milyan mareexaan ka xaday lama dhigin, nin hawiya 30 milyan xoolihii daaroodka loo keenay sadaqada loogu keenay qeexda u farsal lama dhigin, lisma weydiinin. marka waxa la isku sheegaya waa huha iyo maantay waa qowda maqashay waxa uu qaban waxaan u soo noqonay waxaan ku taageero 30 milyan haysto. waa halkan nin ee intuu dhacay dadka Soomaaliyeed lacagta Soomaaliyeed dhacay haddana ugu sameeyay hoteelo Muqdisho dhexdeeda ee dad Soomaaliyeed ku shaqeeya maanta lacag ka sameeyay ciyaalkooda ku korsadaan. waa ku taageeraa hoteelka qurxoon ku dhisay, waa ku taageeraa inuu lacagtii maartay inuu Muqdisho gelinayo dhulka Soomaaliyeed gelinayo oo dad maanta ka shaqeystaan ciyaalkooda ku korsadaan. oo dadka Soomaaliyeed markay lacagta xadaan waxay Itaaliya iyo Faransiiska iyo Turkiga iyo Sacuudiga guryaha ka dhistaan iyo hoteelada. ninkan waa wanaagsan Soomaaliya lacagtii geliyay intaas ku taageeraa lacagta awalba haddii qof Soomaaliyeed qaato oo Soomaaliya gelina inkastoo ciyaal lagu badbaadinayo naf qofka hadduu qaadan asaga loo qaadan intuu qof qaadan lahaa. marka waa inaad ogaataan ninkii u horreeyay lacag qaatay ma aha. hadda kahor 1993 ninka yiraahdo taajir nin hawiya baa lacag loo waday ciidanka maartay maleeshiyaadka ee dadka dagaalaya Soomaaliyeed ee niman cadaan ay soo geeyay Muqdisho taxi buu waday taxi taajir uu noqday taxi uu waday buu lacagta markuu ka saarayay boorsooyinka gadaal baa lacagta u muuqatay. nimankii wuxuu yiri iga daadagu dhahay baabuurku uu socday riixa markii riixan buu ka carray lacagtii $7 milyan baa maalin taajir baa loo bixiyay. marka lacagtan la dhacay Soomaaliya maanta uma horreeyay for foxna dadka hadda 2020 ka dhacay kaligiis baa daarood ku ahaa 20 nin bay ahaayeen inta kale hawiyahay qof ka taw hadlay maarteen qof ka taw hadlay maarteen ma jiro ninkan daaroodka kaliya la fiirinay hawiyaha ninkan daaroodka kaliya fiirinay ninkan daaroodka waa naxaday nimankii hawiyaha oo asaga siiyay shaqada oo u shaqeynayay suuqa u soo gada oo dhahay war adigaas jaamacada Amuud ka soo baxay ka yimaado waqooyi oo wax soo bartay kaana wax noo xisaabay annaga wax soo dhacayna lacagtan for fox furayna oo xafiisyada furtay oo asaga hayr garay ka bacdi wasoo ninka arday wuxuu soo kale wax fahmi og kadib businesska galay nimankii la dhacay asaga oo Malaysia aaday oo Europe aaday oo Africa aaday maxaa looga hadli waayay maxaa kala labada milyan qaad looga waa daarood ninka hawiya ha dhaco wasla meeshii bilis weydiiyay runta hal isku sheego ilmaad rabto isku sheego hambarkan waxa uu soo galay inaan ninkaas maartay in adeerkaya oo dulman oo masaakiinka maanta la daba haysto oo si gardarro looga hadlay kaligiis ayaa meesha u soo galay. daaroodka ayaa cadow isku ah Swiss daaroodka cadow isku ma ah shiina cod waxa la yiraahdaa Facebook ka xirana waa fikirka shiina cod alla shida ku yaray waxaan adeerka ka galay min adeerka waa Facebook ka in kusoo furay min adeerka 10 milyan ku diiday maxaa ka galay maanta 10 milyan ku diiday Facebook ha luskaray hawiyada Facebook ka xiray in adeerka cay in adeerkii kuma ekaanin wuxuu cay daarooda dhan buu cay saldanadii warsan galibo cay xildhibaanadii warsan galibo cay sharaftayadii buu meel uga dhacay. وهنا وقتان ورسنجلي هذه ما عند تلكودي فيسبوك لوقت كان الصبي أنا أقول لنا أنا ورسنجلي عاو وهنا وقتان ورسنجلي أنا جا أفكر ورسنجلي أنا جا عقوه الله ورسنجليو وأنا جعل هاي تلكيتين ننكاس قرتي سأنا جا جوي هذا الكل وبيه كمان دبعان ويلو قدا هذا كي وبيه كون دبعان نينكاس لعagtiisa in laga daba hadlaa mar ma badhacayso maalin markii neel xun taagan tahay shiin cole waxa u fiirsada maalintii neel xun u jinjeerto ayuu wuxuu ka soo hadlaa daaradku waxa ka sheegaa hadii Puntland maanta
udambayso dab uu ka kacayo Puntland buu kasoo hadlaya maalinta noo wanaagsan tahay anagu nagu dhex jira because dadkii kale soo diraynin dadkii kale ayaa soo diraynin laakiin maalinta dadka kale iyo ishayso dadka daaroodku ka soo horjeesanaya waa mid la yaabay war meeshan waxa ku tahay dadka waxa ku tahay xitaa hadii xil lagu siinaa maanta daarood ahaan baa ku imaanaysaa hadii wax ku soo dooranay daarood baa ku soo dooranaya hadii dad ku difaacayaan daarood baa ku difaacaya hadii maanta maal lagu siinayo daarood baa ku siinaya hadii maanta lagu dilo daarood baa diyada bixinaya war waa inaad ogaadid dadkaaga ayaa wax ku tahay in lagu soo adeegsada ma aha aad baan uga xumaaday 20 wiil oo lacag wada xaday halkii daarood ku jira in laga hadlo ma dhici doonto dagaal culus ayaan gelayaa hadday noqoto wallahi haddii mar dambe hadalku sii bato social media uu kusoo noqdo wiilkaa warsan geli 2 milyan oo xaq u leeyahay uu qaatay haddii laga soo hadlo waxaan una digayaa dadka maartay social media maartay ugu soo sareeya facebookina hanuminina ninkaas waa dhamaatay 2 milyan haddii laga hadlaayo oo dadkii lacagta xaday ee asaga ka lacagta badnaa ee hawiye u dhashay haddii la soo dhigayo miiska oo leeyahay hebel baa lacag xaday oo asaga lagu soo daray anigu waxa kama qabo kaligiis in la bursado aan raalli kama noqonayo hadalka halkaas lagu xiro intaasuna ku dhamaaday waa in la ogaadaa wax xaraana anaga u xalaalayna waa in ogaataan anaga u xalaalaynay xalaal bay u tahay guryahoodii baa laga haystaa gurigiis baa laga haystaa dadkiis asaga loo dhaartay asaga la yiro lagu dilayaa haddii xaaraan oo jirto dadka guryaha xaaraanta degan ha ka baxaan hal ogaado xaaraan haddii jirto ninka guriga xaaraanta degan 30 sano ha ka baxo ninka xaaraanta maalmo ku seexanaya ha ka baxo كل يوم نشعل هاي Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato khayriya farmaajo isku dhacay way isku dhacsan yihiin way heshiiyeen farmaajo khayro wuxuu yiraahay farmaajo adiga lagu soo dooranayaa anigu madaxweyne u tartamaya waan ogahay inaad guuleysanaysid marka aniga kaliya tartamaya markaas uu weydiiyay maxaa tabanaysaa oo khaldamay maxaa si ah buu yiraahday wala fadhi farmaajo xanaaqsan oo caraysan oo indhihiisa iyo wajigiisa ka dareemaysa inay caraq ka muuqato wuxuu yiraahay aniga haddii lagu soo doorto waxaan ogahay inaad ra'iisul wasaare iga dhiganaynin oo hawiyo ku kacsan yihiin oo nimanka mursade la rabanin abgaali u tartamayaan habar gidir kursigayga ayagana ay keeni doonid dowladda ayaga ay ka shaqeyn weyday aniga 2010 ima keenaysid kaligay ayaa tartamaya marka waan ogahay inaad guuleysanaysid sidaas ayaan wuxuu dhahay aan raba inaan ku kala tagno farmaajo wuxuu ballan ugu qaaday dowladdiisa labaadna hadeerto yeesho soconin geed deer iyo geed gacan u fuuliyaba dhahay inaan ku soo celinayo ballan buu ku qaaday farmaajo marka khayr xoogaa wuu la heshiiyey in khiyaano dhici doonto lama oga khayro wuu ogolaaday eraygaas asaga ah wuuna qaatay laakiin dadkii meesha fadhiyey oo guddigii markii wada hadlayay dhacdo habeen saddexaad beesha la yiraaho uu ka soo jeedo madaxweynaha Mareexaan iyo beesha mursada uu ka soo jeedo rasuul wasaaraha ayaa fil Soomaaliya soo galay odayaal kamid ah oo si qarsoodi lagu soo galiyay si waxa aamin waayay rasuul wasaare ayaa wuxuu aamin waayay farmaajo wuxuu siiyay ninkan uu khiyaamaya odayaal buu keensaday mursada ah iyo ku Mareexaan odayaashii ayaa ballan u qaadeen oo waxay dhaheen aduu mar madaxweynuhu erga yiraahay kama noqon karo waa inaad taladiisa qaadataa baa la yidhaahay annagana ayaa markhaati ku ah haddii ay saas ay dhacdana annaga ayaa caddayn doona madaxweyne ma sii ahaan doona yidhaaheen ballan baa lagu qaaday marka isku dhacdaa jiray xitaa qoraal maantay ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa mahin magaciisa xafiiska ra-iisul wasaaraha mise office of prime minister la yidhaaho ee tuurku iska leeyahay waxaa la sameeyey tuurkaas xilligii cabdirashiid cali sharaf maake xashiq uu keenayay ayaa la sameeyey tuurkaas marka waxa halba loo dhiibaan dadka mas'uuliyiinta ka ah mise afayeenka u ah rasuul wasaaraha
marka ra-iisul wasaaraha umuusan sheegin dadkiisa shaqaalaha ah ee wax uu qoraay umuusan sheegin inay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha heshiiyeen marka hadal khaldan baa kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo cadeynayo isku dhici oo daba socday oo cadeynaya in uu aqoonsiyay ra-iisul wasaaraha madaxweyne buuxa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Maxamed Axmed Madoobe marka wuxuu ku sheegay madaxweyne buuxa yahay tuurkii ma ku noqonin ilaa galabta laakiin waxaa la sheegay in la tirtiri doono marka waa inaad ogaataan si qaldan buu soo baxay warkaas ra-iisul wasaaraha ayaan u sheegin dadkiisa shaqaalaha ahaa ee qoritaanka laakiinse ay heshiiyeen isku dhacna uu jiray shantii beri u dambeysay laba habeen ka horna ay heshiiyeen sidaas uu ra-iisul wasaaraha ku aaday dhuusamareeb sidoo kale madaxweynihii maamulka Puntland dhuusamareeb caawa ma joogin dad baa isweydiinayeen in uu cararay oo ka cararay ra-iisul wasaaraha imaatiisha markuu maqlo inuu imaanayo heshiiyeen awal wuxuu u joogay wuxuu ogaa inay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha isku dhaceen ciidiisa ahayd uu ku faraxsanaa madaxweynaha kulli maamul goboleedyada dhan bay ku faraxsanaayeen in madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu isku dhacsan yihiin markay heshiiyeen in baalkii dani uu carar madaxweynaha maamulka Puntland dad baa saa ugu dhaheen laakiin muuse cararin asoo xogaa ka xun heshiin labadaas inay heshiiyeen ayuu wuxuu aaday maamulka maxaa la jiray gowe in uu ka qayb galo maantay ayaa waxaa la aasayaa ra-iisul wasaarihii hore xasan abshir faarax ayaa maantay allaha naxariistay oo dhintay ayaa garowa la keenay maantana lagu aasayaa sidaasuu garowa u aaday iyo Puntland sidaasna uu baxay umuu bixin inuu ra-iisul wasaaraha ka cararay ereygaas la soo sheegay asagana isla shalay been bay ahayd waa inaad ogaataan intaas warkii uu ahaa Soomaaliya wax kale la sheegay ma garanayo markaan darbo خير مسكوب الآن